دستور شرطية وكالة تنبين قرني ما لغو دوجيو دلكا لغو مامولا هوي دلكا لغو مامولا دلكا لغو كالهاقا دويان برشديسو دادكايقو ودا أخريا دستور وإنو مهيم دادكا لغو كالهاقا دويان برشديسو دادكايقو ودا أخريا دستور وإنو مهيم dawadayaal waxaynu ku guda jirnaa barnaamijkeena hiibeynta rabadaanta iyo hadiyada dastuurka oo barnaamij aanu dadweynaha ku dhaqan Soomaaliland ku weydiino su'aalo la xiriira dastuurka anagoo sidoo kalena ku siina abaalmarinta ugu tala gashay wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka marka hore magacaaga saddexan Khalid Kaysar Hussein Khalid dastuurka Soomaaliland orta berigii loo codeynay ma soo gaadhay wad codeys waay su'aal baa lagu weydiinayaa maxay la xiriira dastuurka dastuurku wuxuu dadweynaha u damaanad qaadaya xuquuqiyaad fara badan sida xaqo maxay raayi dhiibashada xaqa maxay ahaydee maxaa markaa shardi uga dhigayaa xuquuqahaasi maxaa shardi waa xuquuqahaasi igu soo celi ma xuquuqaha dastuurku damaanad qaadayo sida xuquuqda xorriyadda hadalka oo kale maxaa shardi u ah waxa shardi waa inuu qofku ilaaliyo marka hore xuquuqda uu damaanad qaadayo dastuurku inuu isaguna ilaaliyo سالان waxaan u baahanahay inaad siro bal hadda sir qofku waa inaanu ku xadgudbin xuquuqda loo damaanad qaadayo sida qofkiyo mesela xorriyatul qowlka marka uu leeyahay waa inaanu qofku wax kale aanu iska sheegin ama qofka aanu waxaan munaasib ahayn waxaan sida dawladda kale inuu siraheeda ama way chaliyo wax noocaas sameeyo يعني ما حد يقول شيء ده ما أنا كرنا إنه كل حد جدو إنه جدو سمية ها إنه حد جدو كل سمية شرعيات ده ما وحده ودمانة قاضي دستور ها نسيب شو ما دام تكسر دويسي وحويان أنا كهر إيمانين حركة كله إهداك مركا بالحساس أنا ده كهر إيمان حركة لما حيرر كنت إسقنت وطمانة قاضية إنه كهربان واي همبليان كلنا هاي وتقوليستي حيرر كي حريات كدستور كوضمانة قاضية دوينها وحاشر دي إن أنا كهر إيمانين حيرر كذلك قف كوينا كحد قدبين حرية دلسية إن أنا أنت هيد أنا ضعفين وأنا مركا توكل مركا قف كل حقوق ديسي فرقشني أنا واي هاي همبليان كلها هاي الكوا حكوت شري قدر العقل الله قلت لك لين تكوا فرتو يدستوركي الدستورك ولي ما أخرستي يو إنير مسود دقيستي تي كان دقيستي إنير نوع أخرستي لكن سي مكان أدو ولا آخرني وطاي همبلي صدرت برامج والله أد برنامج كانوا لكن تذكر الدستور كله فانسينية وشروع ضد يفهميان تبغون دائما كواحد شرين تنوع عادية لكن سادنا عن قرنين وقضوا بعض غير لو يديان قرنين كهاد بيقول أكسنتي داوديال ولي waxaan ku guda jirnaa barnaamijkeeni hibeynta rabadaanta iyo hadiyada dastuurka oo dadweynaha ku dhaqan Soomaaliland aanu ku weydiinay su'aalo la xiriira dastuurka marka hore magacaaga saddexan walaal magacaygu Maxamed Ismaaciil Jaamac naanistaadin walaal Chester leeyahay way su'aashaanu ku weydiinay waxa su'aalo la xiriira dastuurka dastuurku muwaadiniinta Soomaaliland iyo dadka kale wuxuu u damaanad qaaday xorriyad iyo xuquuqiyad isku mid ah marka laga reebo hal xuquuq marka xuquuqda muwaadiniintu ay gaarka u leeyihiin in dadka kale wadanka sharciga ku jooga lahayn maxay tahay taas hadaan isku dayo su'aasha hadaan isku dayo waxa weeye wada hadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya taas oo noqonaysa marka in go'aan shacbiyad lagu soo qaado su'aasha hortaan kugu yeeray celiyo dastuurku xaq buu siiyay muwaadiniinta sidoo kale wuxuu siiyay xorriyad muwaadiniinta Soomaaliland u dhashay xuquuqiyaadka kuwa la midana wuxuu siiyay dadka Soomaaliland aanu dhalan ee sharciga ku jooga hadda waxa jira markaa xuquuq u gaar ah dadka Soomaaliland oo aanay la wadaagin dadka wadanka sharciga ku jooga taas hadaan isku dayo waxa noqonaysaa ilaalinta la ilaaliyo in la ilaaliyo dadkaas ajaanibka ah isku dayo wanaagsan laakiin waa jawaabta saxda dadka kala haga weeyaan barashadiisu dadkayga wada akhriya daawad wali waxaan ku guda jirnaa barnaamijkeeni hibeynta rabadaanta iyo hadiyada dastuurka marka hore magaca
waxa la yiraahdaa Khadar Xasan Maxamed oo degan goljan Hargeysa goljan way su'aashan ku weydiinna waxa weeye waa su'aal dastuurka la xidhiidha waxaad noo sheegi doontaa dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu u damaanad qaaday dadka iyaga laftooda ajaanibka ah xuquuq la mid ah muwaadiniinta marka laga reebo hal xuquuq marka xuquuqda muwaadiniintu ay gaarka u leeyihiin ee aanay ajnabigu la wadaagin aynu ka doonayno bismillaahir rahmaanir rahiim hadan su'aashaas ku dayo waxa weeyaan horta dadka muwaadiniinta aan ahayn wadanka ma garanaysaa jooga wadanku aad iyo aad baa loo soo dhaweeyay waxyaabo badan oo xuquuq badan oo fiican baa wadamo badan oo kale anigu haystaan laakiin mid kaliya ma isleeyahay intaana dadka muwaadiniintu ma wax xaq leh oo la siino waa in siyaasadda iyo xukuumadda iyo golayaasha inay galaan habidaas taas xaqaas ayna lahayn inay waa tahay waxaan doonayaa markaas sida dastuurka saanana kala dastuurka si ugu taala waxaan muwaadiniintu saad sheegtay waxay leeyihiin xuquuq dadka sharciga ku jooga waxay leeyihiin xuquuq la mid ah muwaadiniinta marka laga reebo hal xuquuqdaas waa maxay xuquuqdaas waxa weeyaan inaan ka mid ahayn xukuumadda iyo golayaasha warun su'aasha aad bay ugu dhowdahay oo qayb ka mid ah waad sheegtay laakiin inaan codayn karin loona codayn karin weey waa tahay si sax ah ayaad uga jawaabtay hambalyan ku leeyahay waa xaqa codaynta weeyaan xaqa ay gaar u leeyihiin muwaadiniintu iyo ka qayb qaadashada talada dalka hambalyan ku leeyahay wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurku waxay ku guddoonsiinaysaa abaalmarinta loogu talagalay ka qayb qaatayaasha barnaamijkan ee sida saxda uga jawaabay su'aalaha la xidhiidha dastuurka hambalyan ku leeyahay seed u aragtaa barnaamijkan aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka iyo idinka dhammaan howlgalayaasha TV-ga qaranka waxaan ku faraxsanahay su'aalaha noocan dadka aqoon-is-weydaarka dastuurka ma akhriyo maymaan akhri laakiin waan garanayaa waan maqlay arrimaha waan dhegeystaa kala hagaa weeyaan barashadiisu dadkayga wada akhriya adawadayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijkeena iibeynta rabadaanta iyo hadiyadda dastuurka oo si toosa idinka imanaya magaalada Hargeysa marka hore magacaaga saddex Mawlid Maxamed Muuse oo degan magaalada Hargeysa gaar ahaan Abdurrah way su'aal baan ku weydiinaynaa dastuurka la xidhiidho dastuurka weli ma akhriday waa in badan way su'aashu waxaan rajaynaynaa inay ku fududaan doonto ninna meel yar oo saka uga soo baxaysa nin meel soo soo baxaysa nin meel dhexe su'aasha aan ku weydiinaynaa wax weeyaan dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland hay'adaha garsoorka yuu ku sheegay ama hay'adaha garsoorka yuu aqoonsiinay hay'adaha garsoor yihiin dastuurka igu celi su'aasha dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland yuu aqoonsiinay inay yihiin hay'adaha garsoorka muwaadiniinta weeyaan hay'adaha garsoorka maxay ka kooban yihiin si kala haddaan kugu dhigo hay'adaha garsoorku maxay ka kooban yihiin wallahi taa garamayo way aad iyo aad baad u mahadsan tahay waan kaaga mahad celinaa ka qayb qaadashadan kala hagaa weeyaan barashadiisu dadkayga wada akhriya adawadayaal wali waxaynu ku guda jirnaa barnaamijkeena hiibeynta rabadaanta iyo hadiyadda dastuurka oo ah barnaamij aanu dadweynaha ku dhaqan Soomaaliland ku weydiinayno su'aalo la xidhiidha dastuurka kuwaasi oo cid si sax ah uga jawaabta ay wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurku siinayaan abaalmarinta ugu talagaleen oo ka kooban dastuurka iyo qadar lacaga marka hore magacaaga saddex حسن محمد حسن ودقن حراول وي حسن محمد حسن ما تسوق هذا هرت بدي دستور كله عديني ما يبان جوي ود بقلين واي دستور كم اخر واي ما دام دستور كذا اخر waxaan ku weydiinaa su'aal la xidhiidha dastuurka diyaar ma tahay واي su'aashu waxay ka oranaysaa dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland yuu u aqoonsan yahay hay'adaha garsoorka wuxuu aqoonsan yahay ninka muwaadinkii kuma uu aqoonsan yahay garsoore maaha hay'adaha garsoorku imise ka kooban yihiin inta ay ka kooban yihiin ma garan karo aad baad mahadsantahay kala hagaa weeyaan barashadiisu dadkayga wada akhriya daawadayaal weli waxaynu ku guda jirnaa barnaamijkeena hiibeynta rabadaanta iyo hadiyadda dastuurka oo idinka imanaya magaalada Hargeysa dadweynaha ku dhaqan caasimadda waxaanu weydiinaynaa su'aalo la xiriira dastuurka marka hore magacaaga saddex magacayga waxa la yiraahdaa Axmed Caawil Maxamed وين أحمدو سؤال حقيقة أنت؟ دقنا لحيل أعتقد ضرة وين دستور كجمهورية الصومال اللي يقول له عدني مسوقان وضع عضيس وأنا محاضر عضيس ها مسميه وين سؤال شو يدينا واحد هاي دستور كورت ما أخذه وأنا أخريها هاي ذا قرصورك قرنكو أما دستوركو يو أقونسي هذا قرصورك يو أقونسي صدح بوا أقونسي صدح داس waxa weeyaan maxkamadda gobolka iyo maxkamadda degmada iyo maxkamadda sare maxkamadaha maxkamadaha ya kala labeeya ama sadeeya waxa labeeya ama sadeeya
sharciga aad iyo aad baad u mahadsantay aad baad ugu dhoweysay laakiin waxba ka dhiman aad baan rajay waxaan ku dambeynaa sii doonto insha Allah dowladnimo waa dastuur sharciyo waa kala dambeyn xornimo lagu doojiyo dalka lagu maamula hoy dalka lagu maamula lagu kala hagaa weeyaan barashadiisu dadkayga wada akhriya dastuur waa inoo muhiim dadka lagu kala hagaa weeyaan barashadiisu dadkayga wada akhriya dastuur waa inoo